haddii aad nagu cusub tahay walaal sabscribe ku dhufo iyo gambaleelka si aad u heshid videoska cusub mahadsanid السلام عليكم waxaan halkan kugu soo bandhigayaa sida loo isticmaalo gmail-ka markii aad computer-ka isticmaalaysid iyo markii aad ka isticmaalaysid mobilka labadaba way kala duwan yihiin laakiin ayadoo computer-ka aad ka isticmaalaysidna oo kugu soo bandhigayaa marka aad mobilka isticmaalaysidna kugu soo bandhigayaa waxaa kicinaysaa web browser-ka aad isticmaalaysid hadduu yahay Firefox hadduu yahay Opera hadduu yahay Google Chrome hadduu yahay Internet Explorer hadda midka haysatid aad kicinaysaa halkan kore oo address barka ayaa wax ku qoraysaa gmail.com enter aad leedahay waxyaalan sugeynaa uu wareegayaa okay markaas aad soo kicisid kadib halkan ayaa waxaa gelinaysaa emailkaada ayaa gelinaysaa hadda email kale ku jiro laakiin mid kale ayaan ku diraynaa kana kayga next sign in Firefox-ka wuxuu ku keenaa mar walba wuxuu ku leeyahay would you like remember the password on google.com ma rabtaa inuu xasuusto passwordka google.com waa web browser-kan ayaa inta badan saas leh marka mar walba oo aad micnaha internet cafeeda markaad tagtid kan oo kale markuu kusoo dhigo not now ayaa la yiraahdaa waa kan hadda gmail-ki uu soo kacayay inbox-kiisa waa kana inbox-ka meesha ugu horeysa front page-kiisa waxaa primary waaye waxyaalaha lagu soo diro oo markay cusub yihiin updateska ayay ku jiraan email-ka hadda ugu dambeysay kugu soo dhacay waxaa ka helaysaa updates ka helaysaa si guudna waxay ugu jiraan primary-ga ugu jiraan markaas waa kacsanaysaa email-kaada kacsanaysaa waa ku dhufanaysaa caadiga kugu soo kaca markuu kuu soo kaco hadda waa kana hadda hal email ayaa meeshan yaallo sida uu kicinaysid waa iska fududahay korkiisa tagaysaa keligaa siinaysaa haddaad download garaynaysid falaartaas oo isu jeedo ayaad kilig siinaysaa haddii aad Google Drive-ka haddii aad ku save garaysanaysidna save to drive aad leedahay marka rabto inaad kicisid caadi ugu dhufanaysaa isaga ku kacaya waa kana caadi kugu kacay okay dadka macnaha markii ay dad online haday ku yihiin halkan ayay ku soo gelayaan halkan ayay ku soo gelayaan qofkii markaas waa la hadlaya sadda aniga kaliya online dadkan kale online ma go halkan meeshan waxaa ku jirto qaanado badan inta gmail-ka markii aad samaysatid account-ka gmail-ka markaad samaysatid halkaas account waxaa ku isticmaali kartaa inta meesha ku jirto Google Search, Google Maps, YouTube, Google Play Store, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Plus, Google Translate waa kii waxa tarjumayay Google Photo iyo kuwa kale oo meeshan ku sii qarsan Shopping, Google Documents, Google Books, Blogger, Contacts, My Business intaas oo dhan waxaad ku furan kartaa halkii account adiga aad samaysatay oo gmail-ka aad ka samaysatay gmail sidiisa waxa waaye waa Google Mail waa jidaas waxa laga soo gaabiyay Google mailna waa mailkii oo macnaha baqshadiyo waaye ama akhbaaraadka meesha laga dirsan lahaa ama lagu soo diri lahaa waaye
okay marka waxaan rabnaa inta oo halkii gmail anaga aan samaysanay waxaan rabnaa inaan ku isticmaalno intaan aan rabnaa inaan ku isticmaalno kaba soo qaad google plus oo kale aan kicinaynaa waa qaabka facebook uu shaqeeyo oo kasii casrisan camal waaye google plus halkan akhbaaraadka la soo dhigaa dadkan waa facebook meesha wallka uu ka leeyahay oo kale ayuu ka leeyahay inta oo adiga macnaha contactiga kula ah ayaa halkan wax soo dhigato halkan waa inta macnaha dadka jaatinka oo kula sheekaysanaya ama aan la sheekaysanaysid waa meesha aad ka heli lahayd halkan ay soo dhigmayaan waa kaasaa haddii aad rabtid qof inaa wacday haddii aad rabtid markuu online yahay dhibic yar oo cagaara ayaa halkan soo fuulayso kaba soo qaad qofkan oo kale waxaan rabnaa inaan macnaha aan la hadalno kolkiisa tegaysaa waa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid haddii aad rabtid video chatting inaad la samaysid video chattingkaas ku dhufanaysaa haddii aad rabtid qoraal inaad qortid halkan oo kale qoraalka ugu qoraysaa markaa ku dhufatid kadib waxaa kuu soo baxayo video chatting markaa ku dhufatid kadib waxaa kuu soo baxayo windowskan kale ayaa kuu soo baxayo calaamadii oo waxaa kuu soo baxayso oo hangout-ka waxaa la yihahdaa marka qaabkan marka uu shaqeynayo waxaa la yihahdaa hangout google hangout calaamadaas oo cagaarka ah waxaa wato hangout-ka wato iyo labadaas sakad oo ku dhex yaallo google hangout-ka wato hadda marka qofkan online ma aha waan ka baxaynaa qofkan online ma aha waan ka baxaynaa okay halkan waxaa soo markii aad rabtid inaad qoraal dhigtid halkaas oo meesha qalinka kusoo waran yahay ayaad dhigaysaa qoraalkii wixii aad rabtid aad qoraysaa markaa qortid kadib waxaad leedahay share aad leedahay haddii aad u share garaynaysid public haddaa u share garaynaysid publigaad dooranaysaa haddaa u share garaynaysid qof gooni haddaa u share garaynaysidna halkan ayaad waxa ku qoraysaa circleka qofkaas uu kugu jiro ayaad kasoo baxsanaysaa ama macnaha circla badan ayaa samaysan kartaa mid family aa samaysan kartaa mid saaxiibaa samaysan kartaa mid waxaa samaysan kartaa asxaabka qaas oo kale ayaa samaysan kartaa hadda aniga waxaa u sheergaraynaa asxaabteyda qaaska ah ayaan rabaa inaan u sheergareeyo qoraalkaas aan soo qoray waxaan leeyahay marka circleka ay ku jiraan ayaan tegayaa keligaan ku siinaa circlekii waa ii dooran yahay shareaan leeyahay marka wuxuu dhacaa inta asxaabta aniga iyo qaaska ahayd oo meeshaas ku jiray haddii aad rabtid kan familkaada oo kale markaa rabtid inaad u dirtid keligaa mar walba ku siinaysaa familkaada dooranaysaa hadba circleka sidaa u samaysatid waa kadibna share aad leedahay kaas waa marka qoraal aad dhigaysid markii aad macnaha footo ama sawir aad rabtid inaad macnaha soo dhigtid markaa rabtid halkaas footada ay qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka raadinaysaa haddii aad macnaha computerka kasoo qaadaysid upload from computer aad leedahay haddii kale google photo sawiradaada oo google kugu jiro ayaad macnaha aad kilig siinaysaa kadib meeshaa kasoo baxsanaysaa kadib cidda u sheergareyn lahayd ayaa halkan ka dooranaysaa kadibna share ayaad leedahay